السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا maanta waxaa rabaa laba qodob oo muhiim inaan ka hadlo mid wuxuu sii quseeyaa dadka wadanka Norway degan ama Norge saa u taqaantiin taasna waa permittering micnaheedu waxaa waaye qofka shaqada laga fariisiyey waa saa ogtihiin intaasoo qofa dad badan shaqada laga fariisiyey oo si cudurkan sii kordhaya daraatiis u faafin marka dad badan ay soo weydiinayaan maxaa leenahay sidee lacagteena ku heleynaa yaa la xiriirnaa su-aashaas iyadoo kooban su-aalahaas iyagoo kooban haddaan iga jawaabo haddii ay shaqayn jirtay labada usbuuc u horeysa sheefkaada ama meesha shaqada ku siinaya lacagtaada laba usbuuc ka dambe dee xaaladda sii socota haddana way sii soconaysaa la yidhi waxaa waaye waxaa naaf ay ku wareejinayaan naaf marka lagu wareejiyay ama daag bengan ama wixii adiga oo xaaladaad sidaa tahay iyakaa yaqaano waa lagu siinaa laakiin waxaa muhiim ah haddii aad shaqayn jirtay labada usbuuc hadda way dhammaan rabtaa inaad sheefkaada warqadii kasoo qaado warqaday kugu xiraayaan jirta naaf taas waa haddii aad shaqayn jirinna naaf inaad markas la xiriirtid markale jawaabta u fiican oo aan isiin kara waxaa waaye naaf inaad wacdiin numberkooda waxaa waaye 55 waa jawaabta ugu fiican iyakaa ka helaysiin marka midda kale xasuusinaysiin inaad xasuusatiin waqtiga naaf wuxuu qaadan karaa layidhi 2 bilood ilaa 3 bilood marka waqtiga dib aa u dhigin sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaa wixiina u raadsatiin insha allah qodobka labaad oo kale waa ka hadlaya waxaa waaye coronavirus ama covid-19 la dhahayo saa ogtihiin ba hadda jaraa'idka adduunka o dhan waxaa loo soo qorayaa inuu cudurka sii faafay inuu kasii daray daawadiis weli lama hayo marka waxyiisaa ka tataaban laakiin waxa aan rabay inaa focuska saaro oo maanta ka hadlo oo war naxdin oo aa ka aqrinaya jaraa'idka Sweden cudurka Soomaalidan uu kusoo badanayaa waxaa waaye hadda 12 qof aad Sweden ku dhimatay inta oo isbitaalada ku jirto way ka badan yihiin marka hadda wadankan aan joogno hadda Norway intaas qof isbitaala ku jirto marka walaalayaal cudurkan wax fudeed ah ka dhiganina hadda dadka ugu badan oo dadka oo yani wadanka ajnabiga marka la fiiriyo ugu badan wadamadan Soomaalida oo wax ku dhacayo sababtana waxaa keentay taxadirkeena yar cudurka waxaa loo leeyahay qaar ku dhahaya arkaysas waa wixii ilaahay ku talagalay ku dhacay waa sax qaar ku dhahaya marka waqtiga gaar la dhimanay walaal waa sax laakiin cudurkan waa cudur halis waxa waaye hadda jaraa'id kasta wuxuu soo qorayaa waxa la dhahoyaa waxa Soomaalida ugu badan yihiin cudurkan inay u dhintaan oo runta in la isku sheego waa Soomaaliyeed waa waxaa waaye akhbaartii ka imaatay hay'adda caafimaadka ama dowladdan ma raacno nin kasta madax adeeg wuxuu ku leeyahay waxaan waa hergeb kibray waa hergeb waa qandho leh dad hadda maalin hore wiil walaalkeena wuxuu soo duubay Greenland yuu ka soo duubay Soomaali badan oo wiilal badan oo niman badan oo isla taagan 20 kor ay u dhaafayeen 1 meter hataa isuma jirin markuu ka soo duubay isiga wuxuu u soo duubay inuu dadka wacdin gelin siiyo inuu caawiyo oo soo fahansiyo laakiin waa loo xanaaqay waxa uu soo gelisaa la yiri waa ceebtan u sheegaysa marka Soomaaliyeed haday isweydiisiin waxa sugeynaa miya ilaa iyo mataqaanta 40 qof Soomaali inay naga dhimato sababta ceebteena ma rabna inaan isku sheegno ma rabna inaan runta ka hadalno taas horta waa in runta la isku sheegaa oo indhaha la iska geliyaa midda kale cudurkan wax fudeeda ma aha dad waxaa jira xanuunsan dad waalidiin oo waxaa jira oo caafimaadkooda daciif yahay marka adiga Soomaaliga marka banaanka aadid kala jecleen oo guriga soo laabatid qofkan kale waa ku daaranaysaa marka fadlan Soomaaliya joojina madax adeega raacna wadan kasta qof kasta wadanku jooga sharciga uu soo saaray in raacna waa muhiim sababtoo waxaan wax fudud ma aha waxa sugeynaa miya in la dhahaa 67 kun oo Soomaaliya dhimatay sababta sharciga raaci waayeen taas sharaftare noo tahay marka taasna waa inaan ka taxadarnaa insha Allah midda kale qodob yariiso muhiim ah jiro waliba hadda wadankan aan joogno waxa waa qofkii isigoo karanteena gurigaada joog la yiri ama jiradii laga helo isolation ama soo bixin la yiri baxa 20 kun oo ganaax loo siini 20 kun oo ganaax iyo 6 bilood xabsi marka taas laakiin waxa ka sii daran 6 bilood iyo 20 kun inta qof oo asumeynaysid oo jiradaasi faafinaysid isumcadarada ee noo keenayso marka insha Allah maanta intaas ku soo ekeysiina wixii kale su'aalo iyo wixii kale isu weydiin kartiin insha Allah isku day inaan iga jawaabo
marka iska taxatara insha allah soomaaliya alla dadaalo sharafta noo ilaaliya caafimaadka ilaaliya naftiina ka naxa iyo nafta bini-aadankaba haddaad iska naxaynin oo suuqa maraysa adoo jiradii qabo fadlan dadka kale ha ku daaranin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu